دكتور وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aad baa u mahadsan tahay walaalow howlaha beri ilaa shalay ilaa iyo maanta waa socdeen, laakiin waxaan rabaa warkii shalay inaan ka gudbo oo kii maanta aan ku bilaabo. saaka haddaan nahay beelaha guud ahaan marka laga yimaado labada beelood oo dhex martay Habar Yunis iyo Naale Axmed, marka laga yimaado waxaanu u weel qaadnay barnaamijkii nabadda. dabeedna waxaanu u tagnay golaanu isugu nimi fadhigii waxaanu isku waafaqnay inaan la hadallo qolooyinkii iyaguna nabadda dhinacooda ka waday oo habar jeclo. dabeedna habar jeclo fadhiga noogu yimaadeen. hadday fadhiga noogu yimaadeen waa iswaraysanay. iswaraysiga waxaa ka soo baxay war farxad leh oo lagu farxo. iyagaa ku horreeyo waxay warrameen oo ay warbixinta noogu sheegeen in ay nabad ka sidaan qolooyinkii ay la kulmeen Habar Yunis. meel dabaylaan maraya iminkaan yaro istaagay. qolooyinka ay nabadda ka sideen inay la kulmeen, dabeedna ay nabad buuxda ka sidaan, ayna yidhaahdeen nabaddu miiska inaga saaran tahay. annana waxaan u sheegnay qoladii dhulbaanto aan la kulannay inay yidhaahdeen nabaddu miiska inaga saaran tahay, diyaar baanu u nahay. labadaa war oo lagu farxo baanu labadii guruuba kala kulannay. dabadeedna annagu iskayaanu gobolka u aadnay. dabeedna qoladii gobolka iyo maamulkaanu waraysanay. iyana waxay yidhaahdeen wararkii aanu haynay uun in nabadda qolada warsangelina ay ku jiraan, qolada habar jeclana ay ku jiraan. dabadeedna hadaladooda qolada Habar Yunis wararkii ka imanayay waxaa ku jiray war niman yahow ciidankan ilaa iyo maxay ahaytooyay daaradoo dhan oo dabada isu soo haya dee baa halkan soo kulaalaya oo dee xaaladiisu ay walwalkeeda leedahay. annana waxaanu nidhi dhinacan kalena waxaa lagu hayaa warbixin ah in dee ciidamo goof la geeyey, ciidamo meelo kale la keenay. dee warkaasaa la hayaa. labadii warba waxay noqdeen dee war uun aan buunbuunin iyo balaayo ay ku jirto. dabadeedna waxaa la ysku waafaqay in nabadda laga sido labada qoys, in berri si wada jira guddiyadii ku jiray hawshan ee dhexdhexaadka ahaa ay si rasmiya ugu dhawaaqaan intay miidiyaha u yeedhaan oo warbaahinta lagaga dhawaaqo. waad arkaysa doctore, waxaa la yaab leh garaadka dee warqadda laga sameeyey oo beenta oo baraha bulshada wareegaysa. maxay ahaytooye qofka ku soo wacayo oo leh maxaabiis baa tihiin, dadka yagan talinaya oo xeryaha maamulka tegaya oo meel kasta maraya oo la leeyahay maxaabiis baa tihiin, dadkii la qaxinayo oo la leeyahay waa waraydu. marka waxaasoo dhan waxba ka jirin inay ku dhawaaqaan waxgaradka iyo waayeelkii hawsha ku jiray, ummaddana ay u sheegaan inaanay waxaas wax allaale wax ka jira ay jirin, nabadi xidhan tahay. maxay ahaytooyay xitaa gaar ahaan qoyskii hoose oo barnaamijkani uu khuseeyey ay yidhaahdeen nabad baa diyaar naga ah. adigu dee reeraha aad ma kala taqaanid, niman la yidhaahdo maxamuud xaamud ay yidhaahdeen nabad baa diyaar naga ah. qoladii Naale Axmed guud ahaan gaar ahaan qoyskiina ay yidhaahdeen nabad baa diyaar naga ah. warkaa farxadda le in lagu dhawaaqo, wareegga u dambeeyana uu noqdo in labadii reer ee dhulbaantiya Habar Yunisba lasoo ay yimaadaan oo iyadoo la wada dhan yahayna miidiya lasoo istaago la yidhaahdo nabad baa naga xidhan kulligayo. horta warbixintu meesha ay marayso waa halkaa. waxaa aad la yaab u leh in annagiioo joognay la yidhaahdo shirarkaa lagu kala kacay, in annagiioo golayaashii fadhinay la yidhaahdo maxay ahaytooyay wax allaale waxaa ka jiray reer hebel baa diiday, marba reerkaasaa diideenna la yidhaahdo waxaan waxba ka jirin. runtii waa dareemaysaa oo sharka iyo khayrku de waa tartamayaan. ilaahay iidankiina khayrkaa dheeraynaya. ugu dambayn caawa guddigii culimmada ahaayoo shalay hadlay ee reer Ceeri Gaabo caaway mar labaad masaajidda isu qaybiyeen. dabeedna masaajiday kalimaad kooban oo ah in ummadda nabadgeliyo
waayeelka iyo waxgaradka afkooda lagu hadlayo ay berri hadli doonaan oo aan laga hordhacayn in wax qaxa iyo wax midnaba aanay jirin in nabadi jirto laguna dhawaaqi doono xoogaa dadka waxaa yaro khalkhalgeliyey iyadoo la wada heshiiyey oo nabadii meel fiican marayso oo la iswada afgartay oo qolo waliba ay leeyihiin waa naga diyaar oo diyaar baanu lanahay inaan misana la hadlayn aamuskii marka wuxuu keenay in la yidhaahdo waa lagu soo kala kacayo maxaa wax loo sheegi waayey iyo maxaa loo hadli waayey oo annaga dadkaygii guryahayagii joogay iyo oryahayagii iyo ubadkaygii ay yidhaahdaan haddaa nabad soo qaadeen maxaa u sheegi weydeen oo u aamusantihiin waxbaa noon qarinaysaan iyo waxbaa hunbubulaalaysaan annaga lafteedana lagu dacaayadeeyo doctore nimankiina warsangeli war malaa xaggaa nabad dee buuxdaa ma jirtee waxbaa dambabasaysaan oo dusha ka salsalaaxaysaan annana aanu dee qofna dee nina calooshiisa cayriin uma qaryo waxaanu sidnaa waa nabad waxaanu reertolkayga ka sidnaa waa nabad dee idinna warkiinaas waa warna farxad gelinaya waadna arki doontaan haddaanu qarqarinayno dee miidiyaha la soo istaagi mayne waxa miidiyaha iyo warbaahinta loo sheego dad weyse qabaanu nahay dee waa war saxa oo dad ilaahay yaqaanaanu nahay qabriga qiyaama uu ka dambeeyo marka doctore inahaas weeye wixii war oo dambana waa kala war qaadanaynaa